wafdi ballaaran oo hogaaminayo garaadka guud ee deegaanada SSC garaad jaamac garaad cali garaad jaamac iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Khaatumo Yaasiin Axmed Sulub oo ka soo kicitimay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa habeennimadii xalay ahayd soo gaaray deegaankani Buuhoodle waxayna saaka shir jiraayid ku qabteen Hotel City Plaza Buuhoodle iyagoona wax ka taabtay safarro ay ku soo mareen dalka dibaddiisa ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay ambassador Baashe Cali Jaamac oo kamid ahaa wafdigani xalay ayaan soo galnay magaalada Buuhoodle magaalada aad baan u faraxsanahay horumarka iyo waxyaabaha ka socda wararkan ilaa saaka helay aad baan ugu farxanay magaalada wada Khaatumaysan oo fiican oo dadaalis horumar ka socdana waani safarkayga aan ku soo marnay dhul nabadgelyo oo soo marnay deegaanka Jigjiga waxaan ku soo aragnay meel horumar ka socdo oo aad u fiican dadkii halkaan ku aragnayna si wanaagsan bay noo soo dhaweeyeen si wanaagsan inaan nabadgelyada ka wada shaqeyno xuduudaha iyo wax walba oo ka soo ballanay imaatikeyguna wuxuu ku salaysan yahay in tareex aan ka qayb galo dhinaca kale waxa isaguna halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Khaatumo Yaasiin Axmed Sulub waan aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan nimid magaalada Buuhoodle magaalada madaxda gobolka Cayn anagoo ka soo kicitimay magaalada Jigjiga socodkayguna uu ahaa inaan halkan ka bilowno hawlihii ugu muhiimsanaa ee maaragtay Khaatumo sidii uu dhici lahaa shirkii Khaatumo lagu ballansanaayo talax ka dhici lahaa waanu gudbaynaa haddii alla idmo markaan halkan ka dhamaysano haddana aan ku leenahay oo maaragtay la xiriiro shaqooyinkayga la xiriira waxaanu aad iyo aad ugu farxnay magaaladan aan nimada Buuhoodle horumarka ka socda ay maaragtay golaha deegaanka mayo waxaasoo dhan waxaa uun lahaa golaha deegaanka Buuhoodle iyo shacabka weynaha reer Buuhoodle oo noo hambalyeynana aad iyo aad waan ugu farxsanahay waxa isaguna halkaas ka hadlay madaxweynaha golaha deegaanka Arab Xasan Fadal isagoo la soo dhaweeyay wafdigani farxad iyo mahadin maanta waftidan culus ee garaadka hogaaminaya garaadka noo timi waxaan ku soo dhaweynay magaalada madaxdii gobolka Buuhoodle degmada Buuhoodle aad iyo aad baan runtii waxaa maanta farxad noo ah in ay na soo gaadhay waftigii uu hogaaminayay garaadada garaad jaamac garaad cali ambassador Baashe Cali Jaamac iyo muxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Yaasiin Axmed Sulub runtii farxad bay noo tahay in ay maanta na soo gaadhay waftiga oo in badan aan suganay oo dowlad deegaanka Soomaalida xaggooda soo maray aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waftiga waana soo dhaweynaynaa ugu dambeyntii ayaa waxa halkaas ka hadlay garaad jaamac garaad cali garaad jaamac isagoona wax ka taabtay safaradii uu ku soo maray dalalka Imaaraadka waa ku hambalyeynaa waa ku mahadinaynaa waxqabadka golaha deegaanka Buuhoodle iyo shacabweynaha reer Buuhoodle ay qabteen ama ha noqoto airport ama ha noqoto wadada ama ha noqoto waxyaabaha kale ay fuliyeen waxna gacanta ku hayaan waxna u dhameystirmeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa socodkaygu intaas oo ahaa dowlad deegaameedka Soomaalida ee Itoobiya iyo ka soo bilaabmay iyana wada hadal iyo wanaag iyo afgarad yaanu ku dhimid waxaanu ku wajahnay shirweynihii Khaatumo ilaa ku saddexaad insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inuu si guul iyo gobonimo leh uu dhaco Imaaraadka jaaliyadii halkaana waa la kulanay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo halka booqasho ku yimidna waa kala kulanay arrimaha Khaatumo dowlad deegaameedka Soomaalida ee xadka ballaaran aynu leenahay deegaanka ballaaran gudaha dowlad deegaameedka Soomaalida Itoobiya aynu ku leenahay waa kala kulanay iskaashi nabadgelyada iyo wax wada qabsi guud ahaan yaanu isla soo qaadanay ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in uu sii wanaajiyo iyo siday dadku uga soo qayb gali lahaayeen jaaliyadaha Khaatumo ay u soo camali lahaayeen shirweynaha Khaatumo ee loo balansan yahay inuu dhawaan ka dhaco caasimadda ku meel gaarka ah ee dowlad deegaameed dowladda Khaatumo State of Somalia in loo balansan yahay إن شاء الله تعالى شركة سانو نحضر أسي جيدنا
kuna socon waxaan shaki ku jirin labada maamul dhinacyada ka xiga Khaatumo inay kuna wada shaqeynayaan mid walbaana gaar uga shaqeynayo siduu caqabad u gelin lahaa lugta u qaban lahaa doonista shacabka Khaatumo hase yeeshee mar walba waxay noqonaysaa dadka Khaatumo waxa ay doonayaan maxay oran jireen iraadatu shacab iraadatullaah dhinaca kale wafdigani garaadku hogaaminaya ayaa waxay booqdeen garoonka diyaaradaha Ismaaciil Mire International Airport Buuhoodle kaasoo ay ku soo sameeyeen indhayn iyagoona ugu baaqay qurbajoogta ka soo jeeda deegaankani inay ka soo qayb qaataan dhamaystirkiisa waxaa maalmihii u dambeeyay deegaankani Buuhoodle ku soo qulqulayay wafuud aad u tiro badan oo ku sii jeeda deegaanka tale ee halkaasi oo lagu wado inuu ka dhaco shirweynaha Khaatumo 3 Cabdicasiis Aadan Jaamac Somsa TV Buuhoodle